waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu magaca weyn geyiga Soomaaliyeed sidoo kalena ka mid ah saddexda magaalo ee ugu weyn Somaliland waxay dhacdaa gobolka Togdheer waa magaalo dadkeedu ay in badan ka dhidhiyeen ku hoos jiridda heeryadii gumaystaha magaalo uu gumaystihii Ingiriisku u haystay in dadkeedu ay wax walba yeelayaan sidii uu rabana uu ka yeelan karo ka hor intuusan ku warhelin iyada oo maalin cad shacabkii deegaanku hogaamiyihii ciidankiisa ku dileen bartanka magaalada waxaynu u jeednaa magaalada Burco oo aynu muuqaalkeenna maanta ku eegi doonno sooyaalkeeda magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar halkanina waa Waberi Media ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta dhammaadka qarnigii 18aad Burco waxay ka bilaabatay agagaarka ceelka la yiraahdo Ceelgooni ee ku yaala waadiga Togdheer ceelka waxa ka cabi jiray dadka reer miyiga ah waxayna agagaarkii ceelka ka samaysteen tuulo yar oo ay alaabaha ku kala iibsadaan magaca tuulada ayaana noqday Burco muddo kadibna tuuladii waxay noqotay mid weyn oo xiriir ganacsi la leh magaalada xeebta leh ee Berbera gumaystihii Ingiriisku markii uu dalka soo galay waxa uu xoog saaray maamulidda magaalooyinka xeebaha ah dhulalka miyiga ah iyo kuwa xeebaha ka fogba muhiimad badan waqtigaasi uma lahayn Ingiriiska balse muddo kadib ayuu bilaabay inuu maamulkiisii ku soo daadajiyo deegaanada xeebaha ka durugsan si uu reer miyiga cashuur uga qaato sidoo kalena uu uga faa'iideysto kheyraadka deegaanada miyiga ah sanadkii 1910 Burco waxay ka mid ahayd goobihii ugu horeeyay ee uu Ingiriisku soo dego Berbera iyo Hargeysa kadib Ingiriisku Burco kalama kulmin soo dhaweyn iyo heshiisyo lagu marxabaynayo imaanshiyihiisa ka hor waxa ay ka mid ahayd xarumihii daraawiishtu ay kala dagaalami jirtay Ingiriiska gumaystaha oo ogaa arrintan ayaa Burco maamulkeeda madax uga dhigay mid ka mid ah saraakiishii hogaamin jirtay dagaaladii lala galay sayidka ee dhacay waqtigaasi muddo wax yar uun ka horeysay ninkan oo lagu magacaabi jiray Allan Gibb ayaa reer Burco ku soo rogay canshuur adag oo xoolaha looga qaadayo wuxuuna u sheegay in uu doonayo inuu ku dhiso iskuulo wax lagu barto qasabna ay tahay in dhammaantood ay bixiyaan canshuurta dadkii Burco deganaa ayaa si adag u diiday in ay canshuur siiyaan gumaystaha waxayna dagaal kala hortageen sarkaalkii Ingiriiska ugu magacawnaa maamulka gobolka Togdheer sanadkii 1922 ayaa waxa dhacday arin indhihii gumaystaha Ingiriiska ku soo jeedisay Burco badhasaabkii Ingiriiska ahaa ayaa isku dayay inuu xoog ku maquuniyo dadkii deegaanka si uu xoolo cashuur ahaan uga qaado markii isku day kasta uu guuldareystayna waxay noqotay in gacanta la iskula tago dadkii oo aad uga careysnaa dhaqanka gumaystaha ayaa dagaaladii ay kaga hortageen waxay ku dileen Allan Gibb askartii la socotay oo Soomaali iyo ajaanib isugu jirayna sidoo kale ciidda ayaa afka loo daray dhawaaqa geerida Allan Gibb ayaa gaartay aqalka looga arrimiyo xukuumadda Ingiriiska waxay malaysan waayeen wixii meeshaasi ka dhacay waqtiga dhacdadan ay timid ayaa ahaa wax yar kadib markii Ingiriisku burburiyay halgankii daraawiishta haddaba si uu uga hortago isku day kale wuxuu awood saaray in uu caburiyo diidmada ka timid Burco waxa magaalada Cadan ee dalka Yemen ka soo kacay diyaaradihii ciidanka Ingiriiska waxayna duqeeyeen Burco oo waqtigaasi ahayd deegaan aad loo deganaa intaasi kuma joogsan Ingiriisku balse wuxuu Burco xaggeeda u soo dhaqaajiyay ciidan xoog leh oo sida fariin ka timid London oo uu soo diray wasiirkii maxmiyadaha Ingiriiska fariintan ayuu ku amray ninkii u qaabilsanaa dhulka British Somaliland in uu reer Burco ku qasbo inay bixiyaan magta Allan Gibb oo ay ku sheegeen in ay tahay 2500 oo halaad sidoo kalena ay Ingiriiska u soo gacan galiyaan raggii ka dambeeyay dilkiisa haddii ay sidan sameyn waayaanna ay duqeyntu ku socon doonto ganaaxa laga rabana uu si laba jibaarmi doono ugu dambeyn dadkii deegaanka oo aan u babacdhigi karin awooddii gumaystaha ayaa bixiyay ganaaxii balse waxay diideen in dadkii dilka geystay ay u soo dhiibaan Ingiriiska sidaasi ayayna reer Burco iyo maamulkii gumaystuhu u ahaayeen kuwo difaac ku kala jira halgankii gumaysidiidka ahaa ee reer Burco ayaan halkaasi ku istaagin ka hor intuusan bilaaban dagaalkii labaad ee dunida waxa Burco yimid Xaaji Faarax Omar oo ka mid ahaa aqoon-yahankii dibadda wax ku soo bartay aadna u xambaarsanaa afkaaro gumaysidiid ah Faarax Omar ayaa la yimid nidaam siyaasi ah oo aaminsan in si nabadgeliyo ah gumaysiga loo diido taageero xoogan ayuu ka helay shacabkii deganaa dhulka uu Ingiriisku gumaysiga ku haystay wuxuu noqday qof la yimid aqoon iyo hab cusub oo isticmaalka loola dagaali karo Ingiriiska oo dhibsaday afkaarta Faarax Omar
ayaa xabsiga u taxaabay wuxuuna u musaafiriyey jasiiradda Suqadara. waxaa la diiday in lala kulmo daryeel xumo badanna oo ay ku qabsatay xabsiga. markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee dunida ayay xabsiga ka soo daayeen waxayna keeneen magaalada Hargeysa. Ingiriiska ayaa mar kale xaajiga u musaafiriyey Harar ilaa uu ka xanuunsaday oo uu tabar dhigay. markii dambena isaga oo da' iyo caafimaad darro badan la tiihaya ayay Hargeysa ku soo celiyeen, halkaasi oo uu muddo kadib ku geeriyooday. intii uu Faarax Omar ku jiray xabsiyada Ingiriiska waxaa Burco ka socday halgan hubaysan oo lagu diidanaa gumaystaha. waxaa Burco iyo baadiyaheeda ku hareeraysnaa duulaanno hubaysanna ka geysan jiray dagaalyahano uu hogaaminayay Sheekh Bashiir oo ahaa nin caalim ah. xilliyo badan ayuuna dagaallo ku soo qaaday Burco isagoo halkaasi ku laayay askar Ingiriis ah oo waardiye ka haysay xarunta maamulka. Ingiriiska oo aad uga baqay in ay Burco ka bilowdaan kooxo la mid ah daraawiishta ayaa ciidan xoog leh ka keensaday Cadan. ciidanka oo u badnaa South African iyo Hindi ayuu ka soo dejiyey Burco waxayna bilaabeen baadigoob ay ku raadinayaan Sheekh Bashiir iyo kooxdiisii. muddo yar kadib waxaa dagaal adag u dhex maray ciidankii Ingiriiska iyo kuwii gumaysidiidka ahaa ee Sheekh Bashiir. dagaalkan oo ka dhacay deegaan u dhow Burco ayaa waxaa ku shahiiday halgamaa Sheekh Bashiir, halka sidoo kalena uu ku dhintay hogaamiyihii ciidanka Ingiriiska. meydka Sheekh Bashiir ayay Burco u soo qaateen waxayna dhigeen jidka magaalada dhexmara si loo cabsi geliyo reer Burco. waa markii uu gabayaagii weynaa Xaaji Aadan Afqallooc ka tiriyey gabayga uu ugu baroordiiqay Sheekh Bashiir ee uu lahaa isagoo dam iyo dhiig leh oo mara ku duuduuban dadkii uu necbaa iyo kufraa daawasho u yimide dacdarriyo diihaan iyo cag baa loogu sii daraye meydkiisa daahirka ahaa markii dibadda loo jeeday. halkaasi ayuuna gumaystuhu ku soo afjaray halgankii gobonnimo doonka ahaa ee uu horseedka u ahaa Sheekh Bashiir. markii xorriyadda la qaatay sannadkii 1960kii oo ay midoobeen labadii gobol ee waqooyi iyo koonfur, Burco waxay ka mid ahayd 6dii degmo ee ay ka koobnaayeen gobolladii waqooyi ee xorriyadda qaatay 26kii Juun 1960kii. sidoo kale waxay noqotay magaalo madaxda gobolka Togdheer waqtiyadii ay dalka ka talinaysay dowladdii dhexe. Burco waxay ka mid ahayd magaalooyinka muhiimka ah ee dalka dhanka ganacsiga, aqoonta iyo ilbaxnimadaba. kadib guuldaradii dagaalkii 1977 waxaa dalka soo food saaray dhibaatooyin dhaqaale iyo siyaasadeedba. qaybo badan oo dalka ah waxaa ka bilowday jabhado dowladda ka soo horjeeda. xukuumaddii kacaanka ayaa awood xaddhaaf ah u adeegsatay shacabkii waqooyi. sannadkii 1984 waxaa Burco ka dhacay dhacdo xanuun leh oo hal goob loogu toogtay 44 qof oo reer Burco ah. dadkan ayaa lagu eedeeyey inay ka tirsanaayeen jabhaddii SNM ee ka soo horjeeday xukunkii dowladdii dhexe. xilliyo badan ayayna magaalada dagaallo ku dhex marayeen ciidanka dowladda iyo jabhadda SNM oo magaalada ka soo weeraray dhanka xuduudda Itoobiya. sannadkii 1988 ayay sidoo kale diyaaradaha ciidanka cirka Soomaaliya duqeymo aan loo meeldayin ka geysteen Burco. kadib markii ay magaalada soo galeen askartii jabhadda, xukuumaddii kacaanka ee uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre ayaa kacdoonka jabhadaha ugu jawaabtay duqeymo aan loo kala meeldayin oo lagu garaacay magaalooyinka ay ka mid ahayd Burco. ciidamada ayaa dagaallo cirka iyo dhulka ahba ku qaaday magaalada. burbur xooggan iyo dhimasho aad u tiro badan ayaana haleeshay shacabkii magaalada degganaa. dhacdadan ayaana keentay in Burco ay ka dhacaan barakacyo iyo burbur dhammaan magaalada wada saameeyey. markii ay burburtay dowladdii dhexe, Burco waxay ahayd halkii uu ka dhacay shirkii isimada gobollada waqooyi ay kaga dhawaaqeen inay ka go'een Soomaaliya, waxaana halkaasi lagu dhisay Somaliland 18kii bishii shanaad sannadkii 1991. waqti yar kadib, gaar ahaanna sannadkii 1994, waxaa Burco ka dhacay dagaal lagu hoobtay oo dhex maray kooxo ka kala tirsanaa jabhaddii SNM oo u kala baxay qabiil. dagaalkan oo dhibaato kala gaarsiiyey shacabkii reer Burco oo markaasi ka soo guryo noqday dagaaladii magaalada ka socday ilaa 1988. wixii markaasi ka dambeeyey, Burco waxay noqotay magaalo nabadgelyo ah oo korriimo ballaaran oo dhinac kasta ah samaynaysay. Burco waxay ka kooban tahay xaafado ay ka mid yihiin xaafadda Sheekh Bashiir, xaafadda Faarax Omar, xaafadda Maxamed Cali iyo xaafadda Lixle. dhaqaalaha magaalada ayaana ku tiirsan ganacsiga iyo dhoofinta xoolaha nool. dooxa Togdheer ayaa magaalada bartamaha ka mara. cimilo ahaanna waa magaalo heerkul dhexdhexaad ah leh oo inta badan ka hooseeya 30 digrii.